gelinkii dambe maanta ciyaar baa dhacday qolaa kubad ciyaartay dadkeennii calankii qoladaha kale reer muqdisho ayaa hambalyada ugu darayaan mustaxba taasi aduu markay Soomaaliya inay badiyeen aanay badin hawl inoo taala ma haynaga mid kale ay sheegaya mid baa la isku qastaa waxa jira dhowr iyo 20 wadan oo Carab ah qof waliba carabnimadiisu uu haystaa laakiin dalkiisu waa hal mid oo kaliya inaga laakiin aan iska keen qasmin waa tan uga jeedo arrimaha baraha bulshada mobilka yar marka adeegsiga social media ku jirto halka difaac kaga gal maanta rasaastii madfacu waa kelmadaha halka lagu qorayo commentiga faalada halka laga dhiibanayo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal meelkasta joogtiinba walaalkii kaba yar Maxamed Nuure waxaan rabaa marka koobaad inaad tafaafulo muuqaalkan aad soo daawateen waxaan ku xujin doonaa ra'iisul wasaaraha oo la sheegay inuu jigjiga tagi doono waxa kale oo ku xujinayaa Kenya oo wax qarannimada Soomaaliya wuxuu dhibaysa ka sameynaysa Soomaaliya gudaheeda waxa la soo warinayaa gobolka Gadaa inay ka sameynayaan baaritaan shidaal arrinkaana qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ayaa wuxuu dhibayaa inta aan tafaafulka iyo gudagalin waxa ka codsanayaa muuqaalkan inaad noo laagareysid share gareysid asxaabtaadana aad gaarsiidid si muuqaalku oo meel dheer u gaaro waxaan ku bilaabi doonaa muuqaalkan aad soo daawateen ninkaan anigu cid uu yahay ma garanayo laakiin meesha kore waxa ku qoran inuu wasiir yahay sidaa baa ku qoran meesha waxaan rabaa marka halkan inaan dardaaran u jeediyo dadka reer Somaliland ummadda reer Somaliland anigu inta badan horta dhaliishan sheega dadka reer warkalkaal waxa aan isku baranay ammaan maahan wax kasta oo dhaliila oo jiro anigu waan sheegaya qarin maayo ama ha qaraaraato ama ha kula macaata aday ku taala adigu sidaad rabtid u qaado laakiin anigu wixii dhaliilahoon arko waa sheegaya ninkan wuxuu ka soo horjeedaa badintii Soomaaliya ay koobka ku soo guuleysatay dadka reer Somaliland ee la farxaya dadka kale Soomaaliyeed ayuu diidan yahay horta wasiir ahaw ama qof shacab ahaw meesha waxa rabtaa kugu qornaadaan anigu Somaliland ahaan warta waan aaminsanahay maamul Somaliland la yiraahdo inuu jiro doonayana inuu gooni u go'o laakiin wali aan la aqoonsan adigu saarabta u qaado anigu waxaan sheegayaa waxa runta ama ha ku dhibto ama ku daawow aday ku taala Somaliland waqti xaadirkan hadda la joogo waa maamul Soomaaliya ka tirsan laakiin waxay doonayaan Soomaaliya inay ka go'aan laakiin hadda waa Soomaaliya la dhihi kara waxaan marka diidanahay ka soo horjeedaa dadkii Soomaaliyeed in qolo lagu kala xirxirto nin dhan oo sheeqa inta sida u jeeda ninka koofiga wata sunna ka muuqata inuu nin wadaada yaa ka muuqata nin dhan oo wadaada oo bulshada indheheediya inay cuqdada noocaas ku jirto Soomaali iyadoo wali kala go'in war hadaynu kala go'ayna xitaa si qurux badan baynu kala go'ayna hadda dawlad noqonaysiin si qurux badan baa dawladu noqonaysaan anigu ka kaba yarhaan maantay haddaan madaxweyne ahaan lahay waan aqoonsan lahaa Somaliland qadiyada hor Somaliland halkaas iga joogtaa laakiin walaalayaal maanta waxaad tihiin Soomaaliya tihiin bari waxaad noqon doontiin Ilaahay baa idin og maanta laakiin Soomaaliya tihiin waxaan markaan ka codsanayaa Soomaalinimada inaanan ku tuman dadka Soomaaliyeed ayaad wax la leedihiin inaad dadka waxa aad la leedihiin ogaataan maanta guushan soo hoyatay adinka iyo anaga way naga dhaxaysaa adinka iyo anaga way naga dhaxaysaa aduu waxa rabtid aduu qol isku soo xiradaa rabtid waxa tiraahdaa ninka la yiraahdo halkaasan jooga laakiin Soomaali baa taa Soomaaliya taa waliba Soomaali waa magaca guud Soomaaliya taa calanka buluuga iyo baasaboorka Soomaaliyeed ayaad hoos taagan tahay maanta sidaa rabtid u qaado inaad goodid waa doonaysaa laakiin wali maadan goyn marka codsi baan dirayaa waliba dadka shacabka reer Somaliland inta positive ka baan hadlaya inta badan dadka wax ka sheekeynaya wax dhaliilaya negative ka hadlaya waa maamul goboleedka Somaliland weeyaan waxaan markaan kula dardaarmaya walaalahaygow waanu kala go'aynaa hadii Ilaahay qorana waanu wada jireynaa inta aynu dhan isku raacayno oo ama aynu noqonayno dal mid ah ama aynu noqonayno laba dal oo kala madax bannaan adeerayaalow dibeenta dadka ka daaya waxa aad dhalinyarada u sheegaysaan ka daaya negative-ka iyo qabiilka iyo qashinka dhalinyarada u sheegaysaan ka daaya maanta waxaan hubaa dadka reer Somaliland waxa lagu mashquuliyay oo kaliya
waynu go'aynaa maaha haddii maanta la aqoonsado ayaga ayaa qabiil isku dagaalaya sababtoo ah boqolkiiba 99 qabiilka waxaa looga dhaqmaa Somaliland baa looga dhaqmaa ummadda Soomaaliya waxa dawladnimada u diidana waa asaga marka waxaan idin leeyahay walaalahayga waa idin jeclahay dadka Soomaaliyeed dadka aan saaxiibtinimadooda ugu jeclahay ama wada cunkooda aan ugu jeclahay ama aan ugu jeclahay in walaaltinimada dhex marto wallahi waa dadka reer Somaliland Soomaalida kale marka la fiiriyo qabyaaladaas bay xoogaa ay ku been maahe waa dad wax lala cuni karo waxa haystaan aad la cuni kartid waxa aad haysatid inuu kula cunana yeelayo weey aad la noolaa kartid aad la saaxiibi kartid dhabarka ka tooganayn ku dulminayn walaaltinimada iyo saaxiibtinimada yaqaana inta horta waa u quraanu reer Somaliland laakiin iqyaaliga naga daayade inta kolba la idin aqoonsanayo oo noqonaysiin jamhuuriyadda maxaa la dhihi doona jamhuuriyadda dimuqraadiga Somaliland maxaa la dhihi doona mase dawladda Somaliland maxaa la dhihi doona horta lacag haday go'aan balaga ku soo qororta magaci ma sii baxsateen Somaliland anu waxaan ku taageersanahay sida ay wadankooda nabad uga dhigeen sida nabadda ugu naaloolayaan sida ubadkooda ugu naxariisanayaan sida waxbarashada sida horumarka ka jira anu aad baan u taageersanahay laakiin cadiifada ayaan diidanahay cadiifada waa diidanahay Soomaali baynu wadanahay inaad tigtiga dulmidid ma rabo inaad ninkii liidaa Soomaali kala dulmisid ma rabo Soomaaliga aad kamid tahay dawladda aad la tahay inaad dulmidid ma rabo waxaan rabaa walaalow gacaliyo in jacaylka aniga yahayo kala adiga ku hayo arrinkaas halka baan uga gudbaya waxaan ku xijinayaa guux baa jira ah in ra'iisul wasaaruhu uu tigtiga tagi doono arrinkaas waxaan rabaa si Soomaalinimo leh inaan dul istaago horta ra'iisul wasaaruhu waxa ka codsanayaa hadaad tigtiga tagtid waxaad ku xijidaa inaad Somaliland tagtid aqoonsatid macnaha waxay ka dhigan tahay tigtiga markaad tagtid inaad reer tigtiga u aqoonsatay inay Itoobiyaan yihiin madaxweyne kasta oo yimaadaahu wuu ka warwareegtaa inuu tigtiga tago Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin uga dhawaa ma jirin Itoobiya saaxiib uu la ahaa haddana saasoy tahay damiirkiisa dadnimo ma siinayn inuu tigtiga tago sababtoo ah wadaniyadda ayay ka turjumaysaa qofka uu qabo Shariif oo kooriye ma tagin Abdullaahi Yuusuf oo kooriye ma tagin ninka la yiraahdo Cabdiqaasim oo kooriye ma tagin Maxamed Siyaad Barre warkeeda war hal madaxweyne oo tigtiga tagay ma jirin Xasan Sheekh Maxamuud koor Xasan Sheekh Maxamuud siyaasad xumadiisa iyo qaab darradiisa iyo maamul xumadiisa waxayna baraysaa 2015 inay heed baan u malaynayaa inuu tigtiga tagay waa qaatay xilligaas oo waan iri nin gabra la yiraahdo gacanta uga yeerayay nin la dulminayo la abayuusay inuu ahayba baanba u qaatay xilligaas maanta ra'iisul wasaarihiisa inuu ku xujiyo siyaasaddiisa meel weyn bay uga dhici doontaa hadday dhacdo inuu tago arrinka la sheegayo hadday dhacdo baraha bulshada way nuuxnuuxsan doonaan waan idin si qabarnaya hadday dhacdaan ku uri baraha bulshadu saabay u dhaqaaqi doonaan sababtoo ummadda Soomaaliyeed qarannimadooda ayaga ayaa ilaashanaya jigjiga waxay kamid tahay Soomaaliya sida dastuurku ku qoran yahay adeer macaani haddaad tagtidna inaad aqoonsatay ka dhigan tahay war siyaasad xumadan iyo qaab darradan George Xasan Sheekh Maxamuud adigu horta inaad saa iskaga daba wareegtid ma ahane adigu ama hore u socod taqaanaa Xasanow maxaa wax kasta oo qarannimada wax u dhibaya aad ugu dhaqaaqaysaa maxaa tilaabo kasta oo qaado ay u noqonaysaa mid qarannimadii dhaawacaysa miyaadan nin caqli la ahayn maanta waxaynu ognahay in dawladda ciidamada ka qorayaan Soomaaliya qarsoodi yihiin doonayaan in ciidamadana wadamo kale u dagaal geeyaan dib iyo rabshad iyo colaad ay nala rabaan oo dawladda kale la yeelano Xasan waxa ka qaldanadu maantayna tigtiga inaad tagtaa doonaysaa ee ra'iisul wasaaraha geysid waxaasu dawladnimada maahan Xasan wax ummadda Soomaaliyeed ka yeelayna maahan markii horeba ummadda Soomaaliyeed dulqaad bay meesha kaaga fiirsanayeen daaqada ilaahay waxaan ka baryayaa arrinka inuu been ka dhigo anigu raali kama ihi wadankayga in la kala googooyo waqti xaadirkan waxaan aaminsanahay jigjigo inay tahay Soomaaliyan aaminsanahay adigu waad rabtaa aaminsanahay waran waa kugu sheegay war waxaan ku leeyahay markii Xasanow siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha iska eeg baan ku leeyahay walaalow
qaabka labadaba saabaad u walaaqaysaaye walaaqitaanka kadaayo siyaasad fadhida noo keen siyaasad fadhido oonu kaa qaadanno noo keen walaalkeeyow waxaa igu maqaalaa dowladdaadu maantay inay hindisayso inay 5 sano ka dhigto madaxweynaha xilliga la dooranayo adiga maxamiidiyaha ku jirta maantay oo aan berri soo boosti garay doonaa arrinkaa markuu soo shirbaxo adoo dhahaya 4 sano 1 bil in lagu darsado ma yeeli doono xaad marka ku hadlaya marka waaye nin afkiisa iyo dhagihiisa iyo niisu dhaqaad alla ku gurdmayra war naga daaniyo war waa ka gudbaya xasan sheekh maxamuud dhiigayo ugu karine waxaan rabaa kale inaan ka hadlo waxaa la ii sheegay Kenya inay Soomaaliya gudaheeda shidaal ka baarayso Axmed Madoobe iyo tiimkiisuna ay ku sabood garaynayaan raalli uga yihiin oo heshiiskan oo soo saxiixay Axmed Madoobe inta tagay ninka la yiraahdo Kenya arrinkaas qarannimada Soomaaliya ay wax u dhibaysaa waa xaqiiq weey anigu wuxuu intaysan gadaal ka soo shaacbixin ayaan ka sii hormaraa macnaha dadku taar bay wax iskugu gudbiyaan aniga telefoon baa wax la iigu soo sheega arrinka baraha bulshada asbuuciyada soo socdo qabsan doona qodobkaana qorta waxaan rabaa marka xasan sheekh maxamuud adeerow gacaliyow sanad maadan gaarin qarankiina waa dhaawacdee qaabka aad wax u maamulaysid wax ka bedel baan ku leeyahay ugu dambayntii muuqaalkayga bilow ilaa dhammaad haddaad daawanaysay waxaa noo sharafa inaad laag noo saartid barnaamijkana aad noo sheergaraysid intaasoo adiga way kuu fududahay annagana waa dhiirigelintannada adigoon baqayl noqon 5 farood iyo calaacal muuqaalka saar